Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaalaha garbahaygo kusoo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsaa youtube-ka aad naga daawaneysana waa Xafsa channel alaa barnaamijkan waxaad idin soo gudbisaa isla anigoo ah walaashin Xafsa Sayid soo dhawaada meel walba aad joogtaan waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryayaa cimri dheer cibaado suuban oo Allah idin siiyo insha Allah waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waa fiicanahay alxamdulillaah alxamdulilah alshukrullah allah iyo mahad gaar iyo mahad guudba u sugnaatay oo nabad isku keen soo celiyay alxamdulilah mahadnaqa allah subxaanahu watacaala u mahadnaqaysid mar walba wuu fiican yahay la-annahu wuxuu dhahay allah subxaanahu watacaala la in shakartum la asiidanakum haddii aad iigu shukridaan waa idin siyaadinayaa waa la in kafartum ina cadaabii la shadiid insha Allah waxaan rajeynayaa inaan noqotaan mid Allah subxaanahu wa tacaala ku shukri badan mar walba waqti dheer waan kala maqneen balse hadda inuu saamaxaade inaan isku soo laabano mashquul jira awgiisa insha Allah waxaa inoo soo socday kitaabkeena imtixaanaha ahaa ee la magac baxay baro boqol xadiis hase yeeshee intaan u gudagelin muuqaalkayga maanta ugu horeyn haddii ay tahay marka ugu horeysay aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad hore noo joogtan like saar u share garee asxaabtaada nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee la jeclo waxaad naftaa la jeceshahay walaalkaaga haddii aad ahayd kuwa hore ugu xirnaa channelka soo dhawo ayaan la ku leeyahay gacmo furan haddii aad ku cusub tahay sidoo kale kusoo dhawaaw gacmo furan niyad saafi iyo qalbi furan insha Allah caawan waxaan qaadan doonaa haddii Allah subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo darsigeenii 53 biidnillah bismillah عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه رواه البخاري النبي نبتقلي نحريس كركيسا هاتي وحودهاي الله كرالي نقضي قفكي نذرا إنو الله سبحانه وتعالى أضيعيه ها أضيعه ayuu yiri nabiga waman nadara qofkii nadaraane an yacsiyahu falaa yacsihi qofkii nadaraane inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku caasinayo yuusan ku caasinin ayuu yiri nabiga qofkii nadaraa inuu Allah adeecayo subxaanahu watacaala ha adeeco yacni waxaa loola jeedaa nadarkan yacni wax Allah subxaanahu watacaala kugu waajib yeelin inaad isku waajib yeesho aad balan qaado tusaale ahaan inaad dhahdo caawo waa balan waxaan dukanayaa salaatul leyl waa balan qaatay waxaa lagaaga baahan yahay inaad soo toosto oo soo kacdo aad dukatid waxaa kaloo dhihi kartaa beri waa soomayaa ilaahay muusan kugu waajib yeelin laakiin balan ayaa qaaday waxaa loo baahan yahay inaad oofiso nadarka midkaas ayaa loola jeedaa qofkii nadaraan an yacsiyo falaa yacsihi qofkii nadaraan yacni inuu ku caasinayo Allah subxaanahu wa tacaala yuusan ku caasinin oo ha ka joogsado yacni waxaa loola jeedaa nadarkaas yacni qofka inuu xumaan balan qaado tusaalaan oo dhaho oo balan qaado beri inuu wax xumaan soo sameynayo yacni waxaa loola jeedaa ha ka istaago qofkaas yuusan sameynin xumaanta laakiin waxaa loo baahan yahay qofka wanaaga sameeyo oo balan qaado inuu sameeyo laakiin qofka xumaanta balan qaado inuusan sameynin oo ka istaago sidaas ayaa loola jeedaa insha Allah inaad wax badan ka fahanteen aadna usii sheer gareyn doontaan asxaabtiina waa idinka raaligelinayaa haddii uu muuqaalkayga idinku dheeraaday meel kastoo aad joogtaan iyo waqti walba idin tahay waxaa idin rajeynayaa meel kastoo maqalkayga iyo muuqayga idinka soo gaarayo iyo dhageysiga aad dhageysanaysaan inaad caafimaad qabtaan insha Allah aadna wax badan ka faa'iidi doontaan intaas kadib waqti badan ayaa kala maqneen aad ayaan u mashquulsanaa waxaan jeclaa muuqaalo fara badan inaan idin soo duubo
oo qurux badan oo qiimo badan oo wax badan aad ka faa'iideysaan balse waqtiga ayaa inuu saamixi waayo insha allah hadduu alla subxaana watacaala inuu saamaxo waqti badan ayaa isla qaadan doonaa waxaad naga faa'iidi doontiin muuqaalo fara badan hase yeeshee guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa daawashada muuqaalkayga waad ku mahadsan tahay haddii aad subscribe saartay sidoo kale waad ku mahadsan tahay haddii aad share garaysay ha ilaawin haddii aad muuqaalka dhammaystay inaad like garayso assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh